saddex camal walaalow haddaa samaysa adigoo adduunka jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu soo codsiinaya camalkaaga adigoo ku jira qabrigaaga. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاري مسوري أبو هريرة رضي الله عنه صحيح كجر صحيح مسلم وحول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. بني آدم كمر كدنتو عمل كيسودا وقع ودمادا صدح مويانه أيا أصعته سوق قبر كيسو كجرا. النبي صلى الله عليه وسلم وحول كو وصدقة جارية وصدقة صعتة. صدقة صعتة نوحلوجة كذا صدقون كوي كلا دوين صدقة ترتاع مسكين سينسد شيب كيسو كريدية عنتو كعنية ويدمات الصدقة داسي. لكن صدقة مساجد جلسد أما عيلة قدد وحياباسي مر والبا وصدقة صعتة ومر والبا لقفا إيدي سنيو طلبات وحول النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به. qof aqoon leh oo cilmi leh oo cilmigaasi duubay ama qoray oo ka tagay cilmigaasi oo dadku ka faa'iideysanayaan cilmigiisa isagoo qabrigiisa ku jira. qofkaasina amalkiisu u socdaa ajirkiisuna u socdaa. saddexaadkan wuxuu yidhi nabi sallallahu alayhi wasallam awwaladun saalihun yad'uu lahu. ama wiil ama gabadh ilmo uu dhalay oo saalixa oo fiican oo si fiican u soo barbaariyay oo u duceynaya aabahood ama hooyadood. saddexdaas wixii tususa meelaha muhiimka walaalow aan camalkeena aan saarno. qof cilmi leh cilmigaaga duub oo cilmigaaga qor oo cilmigaaga ka tag dadku ha ka faa'iideystaan. qof waalid baa tahay caruurtaada si fiican u soo barbaari si ku duceeyaan marka dhimatid ilaahay subxaanahu wa tacaala amaanadiisa qaado. marka walaalow saddexdaasi aan ku dadaalno sadaqaadkeena haddaan gelino sadaqaatun jaariya. laakiin qofka maskaxda leh saddexdaas ku dadaalayso adduunka jooga soo camalkiisu iyo ajirkiisu socdo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ula kulmo. sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.